بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. walaalyaal maanta waxaan qaadanaynaa qiso dhex martay ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه iyo gabar ka mid ahayd asxaabu rasuulillah. waxa uu warinayaa imaamka la yiraahdo al-Xaafid al-Bayhaqi سيدنا عمر بن الخطاب مالin maalmaha ka mid ah inuu fuulay minbarka uuna u khudbeeyay asxaabu rasuulillah. ilaahay ay u mahad celiyeen nabi maxamedna uu amaanay calayhi salaatu wassalaam. kadibna waxa uu ka hadlay meherka gabdhaha inaan la badin karin. waxana yaa ayuha nnaas laa tuqaaluu fii sadaaqi nnisaa, dadow ha badinina dumarka meherkooda. waxaana uu yidhi haddii aan maqlo qof in uu bixiyey meher ka badan nabi maxamed calayhi salaatu wassalaam, meherkii waxa uu u siiyey gabdhihiisii inta badan ayaan qaadaya, oo meherkii nabiga calayhi salaatu wassalaam inta dheeriga ka ah ayaan qaadayaa, waxaana dhigayaa baytulmaali lmuslimiin, muslimiinta bangigooda ayaan dhigayaa. markaasuu khudbadiisii markii uu dhammaystay ayuu ka soo degay mimbarka. waxaana ka hor timid gabar ka mid ahayd asxaabu rasuulillah, waxayna ay tidhi yaa cumar, akitaabullaahi axaqu an yuttabac am qowluka, ma waxaa mudan in la raaca ilaahay kalaamkiisa mise qowlkaaga? markaasuu sayiduna cumar ibnu alkhadaab wuxuu yidhi bal kitaabullah famaa daaki, ilaahay kitaabkiisaa la raacine maxaa sheegaysaa? markaasuu waxay tidhi mar dhoweyd waxaad diiday in meherka gabdhaha la badiyo, ilaahayna qur'aanka waxa uu ku leeyahay وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. قنطارك وحا ليرى هذا سيدا أوتل من صاحب المصباح المنير المال الكثير، مال كفرض بدن. إلهي نوح إليه وآتيتم إحداهن قنطارا. مركز سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وحويري كل أحد أفقه من عمر، كل أحد أفقه من عمر، كل أحد أفقه من حقه. سدح جير كعل عليه قف كستا أيا كفقه سن عمر. كدبنا وحقه كل أبتين من بركة وحنا يريد ضو وحناها إن إذين ديري مهركة قبلها إن أتبلسان. هذا واحد ربطان سمية فليفعل الرجل ما بدا له من ماله. وحنا يري نوال با gabadha waxa uu rabo meherha uga dhiga sidoo rabaha ugu badiyo. qisada waxaan ka qaadanaynaa sayidka weyn ee Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu inuu ahaa waqafan bayna yaday kitaabillah, ilaahay kitaabkiisa marka ay loo sheego ama mas'ala diini ah loo sheego in uu ku baraarugayo oo uu ka laabanayo gafkiisa, ma uusan ahayn inuu isla weynan yahay, ma uusan ahayn inuu kibrayo. waxa uu ahaa inuu muujinayo inuu yahay qof bini aadan ah oo aan macsuum ahayn oo gafi kara. ولذلك دمانتين وحا مهمة إن أن كفى إذا يسنو أن كدينو سيدك وين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن كبر كإسكيلا لنا تواضعا أن بدنا. وبالله توفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.